بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaa sharafii marka hore guddoomiyaha golaha wakiilada, labada ku-xigeen, xubnaha baarlamaanka dowladda Puntland, madax dhaqameedka, ururada bulshada nooc walba, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan si gaarana u bogaadinayaa qof walba maqaamka iyo qiyamka uu igu maqlaayo iguna dhegaysanayo. waxaan munaasabaddan kaga faa'iidaysanayaa aniga oo cali ciise kana mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowladda Puntland ee 5 sano ee soo socota. waxaa sharaf weynii ah inaan maanta hortiinna ka soo jeediyo khudbaddayda ku aadan barnaamijkayga siyaasadeed iyo aragtiyadayda ku aadan hannaanka dowladnimo ee aan himilooyinkayga ku dhaqayo haddii aan hanto xilka aan murashaxa u ahay. mudanayaan iyo marwooyin, inta aanan gudagelin barnaamijkaa kooban, waxaan jeclahay inaan si yaroo kooban idin idhaahdo haddii aan CV-gayga isdhaahdo u sharax xildhibaanow 15 daqiiqaan haystay ayaa iga dhammaanaya. marka waxaan ku bilaabayaa inaan u dhashay ama ku dhashay gobolka Sool, wax ku bartay gobolka Sanaag iyo magaalo Sheekh la yidhaahdo. tacliinteeda Soomaaliya intaas ay ku ekayd. waxaan iskortaagayaa inaan shahaadooyinkayga iyo waxbarashadayda kale ku dhammaystay dalka Maraykanka oo midkood 2, 3, 4 shahaadooyinkaasu ay kulmiyeen. waxaan muddo dhowr iyo 20 sano ka shaqaynayay sanduuqa adduunka oo bangiga dhexe ee baananka dhexe adduunka ah. waxa aan shaqada markaan ka fadhiistay oo ii suurto gelisay inaan kala taliyo arrimaha maamulka iyo dhaqaalaha qadar 35 ilaa 40 dal ah, qaaradaha Afrika u badan, Aasiya, dhulka Carbeed iyo galbeedka, dalalka galbeedka. waxa aan 10kii sano dambe u heelanaa madaxna ka ahaa machadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada geeska Afrika oo aan isku dayay inaan ka caawiyo dalalka khaasatan ku bahoobay IGAD oo 8 ilaa Kenya ilaa Suudaan ilaa Soomaaliya iyo inta u dhaxaysa. hawshaan hayay ugu cuslayd waxay ahayd inaan si hagar la'aana dalka Soomaaliya u dhashay dhammaantiin inaan u sameeyo maamulkii shuruuc lagu maamuli lahaa ee dhaqaale. hay-addaas waata ilaahay u suuro geliyey inay bangiga dhexe sharcigiisa, miisaaniyad dalka lagu sameeyo sharcigeeda,
hanti dhowrka intaba inay iyadu faraha ku qabato oo dib u habayn ku samayso. waxaan idhi ku dheeraan maayo shaqooyinka aan soo qabtay iyo CV-gayga. waxa aan idinla wadaagayaa oo si kooban aan u gudagelayaa waxaa weeye barnaamijka aan leeyahay waan ku maamuli doonaa haddii idanka alla ka dhigo oo aan hanto maqaamka iyo mansabka aan murashaxa u ahay. mudanayaal waxaan ku aslayaa sifooyinka islaamiga ah oo qaran lagu dhiso laguna maamulo. waxaan idinla wadaagayaa 1400 oo sano mar laga joogo mufakiriinta muslimka dadkii ugu magac roonaa midkooda ibn qutayba la yidhaahdaa. hadda waxaad google ku samayso qof waliba waa la soo bixi karaa waa arkaya oo yidhi qaran lama samayn karo suuragalna maaha inuu qarankaasu kaco oo gaadho himilooyinkiisa haddii aanu lahayn arrin lagu dheeraaday walaalahayga musharaxiintii ay ku dheeraadeen intii hadashay oo ah wax la yidhaahdo ciidan qaran. dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay u muuqdaan ma hanan karto markaa qarannimada sifadiisa. ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn. ma suuragal ah aniga fakarkayga adina waa walaalayaasha generaalada iyo meesha fadhiya hadlayay waxay iga aqoon badan yihiin. anigu nin ciidan dhismihiisa iyo anaa idiin sharxaya ma ahi. laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaahar leeyahay ciidankuuma ah. haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuuma ah. waxaa qiyamka ciidan lagu yaqaanaa waxaa weeye inuu dowladda iyo dalka daacadna u yahay kartideeda iyo maamulkeedana lagu tayeeyo. dowladaha uu ibn qutayba sifaynaya waa dowlado muslima weeye. ninku marka hadduu muslim yahay maaha inuu tacaddi ku kacayo laakiin waa inuu ilaalinayaa nafta iyo maalka uu mas-uulka ka yahay. dhaqaalaha ku filan ee noocaas oo kale ah ma suurto galo in la helo haddii aan lahayn mid ku salaysan karti iyo hufnaan. waxaan idiin ballan qaadayaa bacdamaaba wakhtigu uu kooban yahay inaan ku aslo maamulka xukuumadda ama dowladda aan leeyahay waa inaan dhisaan diyaar u ahay karti iyo hufnaan iyo daahfurnaan. 3 dhaqaalahaas la heli maayo maxaan ku idhahda ciidankaana dhismi maayo haddii aanay jirin cadaalad iyo sinaansho lagu maamulayo. waxaan u baahan lahaa baan u malaya wakhti dheer laakiin waxaan ku soo gebagabaynayaa cadaaladda iyo sinaanshaha waxaa ka koowa soomaaliya waxay go'aansatay inay ku noolaato nidaam federaal ah. nin waliba inuu madax bannaan yahay arrimihiisana u tashado. inta boogtu ku taallo puntland dal tacaddi lagu samaynayo oo qof kale leeyahay xabad baan kugu xukumaya. diinteenna islaamkii waxayna faraysaa jirkaaga haddii mooli bugto inta kalena waa la qabtaa dhibaatada waa la qabta. walaalayaalow waxaan idin farayaa ma aha reer hebel baa la xoreynaya ma aha reer hebel baa tan loo samaynaya. waxaa weeye arrin u taalla united nationka charterkeeda koowaad uu sheegayo human rightska u taalla inaan qof tacaddiga intaa lagu samayn loo odhan karin ma tashan kartid ma madax bannaanaan kartid dalkaaga iyo dadkaaga. taa waa idin faraya. waxaan kaloo idin faraya
xildhibaanow hadal af laga yidhi macno samayn maayo mudane cali waa kaa dhammaaday wakhtigii murashaxa ku xiga sidii loo gaadhi lahaa kartida iyo hubnaanta dowladda مرشح جنرال خليف عيسى مدن